هذا اللي xiriirta ciidamo gaaraya ilaa 200 oo askari oo ka socda dhinaca Mareykanka in ay ka mid noqonayaan ama ay runtii noqonayaan kormeerayaal iyo isku xirayaal dhinaca heshiiska xabad joojinta ee la gaaray Gaza. waa sheekada ugu badan ee meediyaha dunida ay aad wax uga qorayaan sida la sheegayo maalinkii Khamiista ahayd ee soo dhaafnay ayaa saraakiil ka mid ah Mareykanka waxa iyagu ay sheegeen inay u dirayaan Gaza 200 oo askari oo ka socda dawladda Mareykanka kuwaas oo noqon doona kuwa kormeera ama isku xira ilaalinta heshiiska la gaaray Israel iyo Hamas la xiriira xabad joojinta. arintana waxa ay saraakiil ka mid ah xarunta dhexe ee militariga ee dawladda Mareykanka ay sheegeen in uu hogaamin doono Admiral Brad Cooper oo isagu saldhigi doona xarun military laakiin adeeg shacab qabanaysa ama xiriir u sameynaysa xarunta dhexe la xiriira maaragtay kormeerka iyo la socodka xaaladaha heshiiska iyo fududeynta arrimaha bini'aadanimo ee muhiimka ah ee la doonayo in laga hirgeliyo gudaha Gaza. waxaana ay sheegeen arrintan in Israel ay ka heli doonto caawin dhinaca xagga amniga iyo la socodka dhaqdhaqaaqyada Gaza. dhinaca Gazana inay heli doonaan taageero bini'aadanimo oo iyadu macquul gal ah sida ay saraakiisha Mareykanku yiraahdeen. ciidamada Mareykanka uu hogaaminayo Admiral Cooper ayaa waxa ay ku biiri doonaan sida la sheegay dufcado kale oo ina ka socda ama ururo kale oo military ina ka socda dhinaca gobolka gaar ahaan sida dawladda Masar oo kale, Qatar, Turkiga iyo Imaaraadka oo ayaguna maaragtay dusha kala socon doona xaaladda isku xirka xabad joojinta iyo hirgelinta heshiiska. ciidamada Mareykanka saraakiil ka mid ah hadlay waxay sheegeen inaanay loogu talagelin in ay Gaza gudaha u galaan laakiin ay sameeyaan xarun dhexe oo coordinate garaysa ama isku xiraysa dawladaha kala duwan ciidamada iyo qaybaha heshiiska uu qoseeyay dhinacyada heshiiska gaaray. marka dufcadii ugu horeysay ama xubno ka mid ah 200 askari dawladda Mareykanka ay shaaca ka qaaday tira ka mid ah ayaa durba waxa ay gaareen Gaza. sida wararku sheegayaana intooda badan waa qolyaha military plannerska ama arrimaha militariga si diyaariya ama qorsheeya oo ah saraakiil xul ah oo Mareykanka ugu talagalay inay si saleeyaan arrimaha. sidoo kale niman khubro ah oo xagga militariga gaar ahaan xagga saanadaha iyo khubro kale dhinaca amniga ah iyo shakhsiyaad kale oo saraakiil Mareykan ah oo iyagu loogu talagalay inay sameeyaan waxa la yiraahdo support field ama waxyaabaha goobaha laga howlgelaya caawimaadda looga baahan yahay suura gelin kara. hadafka marka habkan dhexe ay ciidamada dawladda Mareykanka ay u diyaarsadeen inay ku kormeeraan heshiiska iyo xabad joojinta ee arrimaha bini'aadanimo sida iyagu ay sheegayaan iyo sidoo kaleba arrimaha siyaasadda iyo isku xirka dhinaca quburadaba ee la xiriira arrimaha bini'aadanimada iyo amniga ee gobolka. waxa ay ku sheegayaan inuu yahay mid ay ku lax jeclaysanayso heshiiska labada dhinac ay gaareen laguna suura gelinayo marxalad suuragal ka dhigi karta in wixii lagu ballamay ay meel maraan. laakiin dareenka dadka Falastiiniyiinta ah ayaanan dareemaynin farxad badan maadaama Mareykanka uu ahaa gacanta koowaad ee ugu weyn ee maalgelinayay baabi'ii loo geystay shacabka reer Falastiin. haddana in Mareykanka saameyn inta leeg uu heshiiska ku yeesho ciidamo xaggiisa ka socda yimaadaan waxay u arkaan wax badan oo rabitaanka Israel ah
in la meelmarinayo warbaahin badan oo wax ka qoraya arrimahan waxay qaarkood ay ku macnaynayaan ama ay ku sifaynayaan kani ma aha heshiis laakiin heshiis nabadeed ama mid bulsho ma aha waa heshiis ganacsi bay leeyihiin ayagoo taa ula jeeda in Mareykanka marnaba uusan ka shaqaynaynin danaha Falastiiniyiinta waa sida aragtida warbaahin badan iyo shakhsiyaad badan oo arrimaha amniga iyo siyaasadda bariga dhexe la xiriira ay ayagu aragtidooda ku cabirayaan waana siday u badan tahay sababtoo ah marka heshiiskan xoogga la saaro in la wada gaaro waxaa meesha ka baxaya xasuuqii ba'naa ee loo geystay dadka reer Falastiin kumanaanka dadka la dilay iyo carruurtii faraha badnayd ee waxba galabsan oo u baahan in laga wada xisaabtamo arrintaas oo u baahan isla xisaabtan iyo cadcadaan dhaba u baahan ayaa la doonayaa in meesha lagu mooso kadibna wax xoog leh oo ballaaran oo miisaan leh laga dhigo arrinta heshiiska marka arrintanna waa dood taagan waxayna u badan tahay haddii aanay Israel iyo Hamas heshiiska lagu wado aysan ayagu markay maxaabiistu isdhaafsadaan ay Israel qaybo ka mid ah Gaza si tartiib ah u sii banayso haddii marka heshiiska labada dhinac aanay siinin kalsooni badan ama dhan ka mid ah oo ku jiro tuhun oo qasab ay tahay inuu jirayo waxa adkaanaysa in heshiiska uu caga adag ku sii taagnaado waxaana suuragal ah mar kale gacan saar inuu iman karo marka arrintan waxay dabin ku noqon kartaa Hamas waxayna dhinaca kale caqabad weyn ku noqon kartaa in hadday mar kale arrintan waji kale la soo baxdo in durba xal la helo waxaana suuragal ah inay dhacaan dhibaatooyinkii xoogga lahaa ee shacabka Falastiiniyiinta ayagu gaaray kuwaasoo hadda bilaabay inay dib ugu soo laabtaan waqooyiga Gaza ayagoo u arkaya in heshiiskaasi uu macno u sameynayo